بسم الله الرحمن الرحيم. مدح يا شعبا إلهي أيام هدلة ونقص مي هبين كان عاوة وهبين كل مي لو فرحضات وهبين مالنتي علن كنا هي فرحة لبعض إن عاوة رين يا الرياض كلين وجود بالدقينو جوشة محكمة عدالة دونك ودمانتين عاون نوغديغن مهمادي أهيد سمرا ستكي سهلا وهبين وشرفين هاي سومالي النول يا الله هون حريسته متكدنتي وهبين وهنتي كم مغنيت هلاي سومالي جوجا يمد كدلان دونا بري وهبين وقف والبدري مايو ددنكا اي لذا هاي جوشا هي شقا كستا وسيو ذا جرأة لوغا ميرداريو وجوشي سوماليات وسيو ذا جرأة لوغا ميردالي waxaan bogaadinayaa cid kasta oo ka geysatay gacan weyn ama gacan yar ka gungaaridda guusha caawa rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel shacab iyo dawladba waxaan leeyahay intii mootanna allah u naxariistee inta noolna dhammaanteen ama dhammaantiin waxaad gudateen waajibkiina cid loo hambalyeynaayo ama loo mahad celinayo caawa waa shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waxay qaateen kaalin dhab ah oo fasiraad ka bixinaysa dunta qofka Soomaaliga ah iyo sida aan ummad ahaan ugu adagnahay xaqiijinta xuquuqdeena waa inaan dhammaanteen isugu hambalyeynaa guushan taariikhiga ah oo ah guul la wada leeyahay oo aan la kala lahayn hase yeeshee intii nicaawa maxkamadda go-aankeeda dhegaysanaysay shaqadu waa bilow dabaaldeg keliya inooma yaallo waxaana sugayaa tacab aan nasasho lahayn iyo halgan aan dhayalsi lahayn waxaan nala gudboon si aan guushan ugu bedelno ficil oo dalkeenna ugu hagno guulo kasii waaweyn tan caawa iyo kuwo kaleba inaan la nimaadno bisayl siyaasi ah is-aqbal bulsho iyo hirgelinta dhismaha nidaam dawli ah oo ku filan inuu hanto dalkeenna berri iyo baddii caawa inoo soo noqotayba laakiin waa inaan runta isu sheegno waxaa hubaal ah sida aan hadda ku soconno inaanan ku xaqiijin karin kamiro dhalinta guusha iyo kuwa kale midnaba haddii aan dalkan doorashadiisa la dedejin si aanay dowladnimadiisu mar kale ugu dhicin god ama dalluun dheer waa run qaran ahaan inaan isku filnaan karno waa run dad ahaan iyo khayraad ahaanba inaan isku filnaan karno waa run waxaan nahay kuwa haddii ay dadaalaan mustaqbalka dhow lagu soo hiran karo laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaan guushan awgeed gacmaha isku qabsanno xaqiijinnana inaanu dalkeennu mar dambe dib u dhac aanay ku dhicin waa habeen farxadeed oo aanu xafladeynayno calankeenna iyo baddeennu milkiilayaal
uma baahna ka qatan khayraadkeeda baddeenu waxay u baahan tahay milkiilayaal ku intifcaada oo hiigsata ummadaha ay la tartamayso waxaan shaki iiga jirin inaan guulaysan karno ummad ahaan dal ahaan iyo dowlad ahaanba haddii aan la nimaadno hadaf midaysan ujeeddo hagaagsan iyo hayaan hiigsigiisa laga siman yahay taasoo ku taagan hogaamin dhab ah maadaama caawa ay tahay habeen muhiim ah taariikhdana ku qormi doonta waxaan rajaynayaa inaan ahaano kuwa tagtada iyo taariikhda wax ka barta waxaan rajaynayaa inaan ka ilaalino dalkeena dib u dhac dambe waxaan leeyahay Soomaaliya ha waarto Soomaaliya ha midowdo ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay aan shakil idin gelinin caawa dacwadii go'aanka ka soo baxay waxa uu ahaa guul weyn oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba ay guuleysteen macnaheedu ma aha marka inaan isdhiganno laakiin caawa ay shaqo noo bilaabatay waxaan leeyahay Soomaaliya hambaliyo